wixii la qoraa quruma hadhe muxuu hadal qiimo leeyahay qalinka wax suuraya kugu sima halka doonto haddaba naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan oo kamid ah naadiyada farakutiriska ah ee ka howlgala magaalada Buro ee xarunta gobolka Togdheer isla mar ahaantaana uu hirgeliyay dhalinyarada gobolka Togdheer meel ay ka heli karaan buugaagta noocyada kala duwan ee ku qoran luqadaha Jaanibka iyo Soomaaliga haddaba Axmed Cabdiraxmaan Saalax Haykal oo ah gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan oo wareysi gaar ah ku siinay telefishinka caalamiga Soomaaliga Cable xafiiska oo ku leeyahay rugta akhriska iyo qoraalka ee halkaraan ayaa naga warbixiyay faa'iidooyinka akhriska iyo qoraalka iyo sidoo kale wax qabadeeda ay u qabteen dhalinyarada jecel wax akhriska waxaana kamid ah hadaladiisa sida tan waxaan maanta runtii inaan laba iyo saddex qodob ka yiraahdo halkaraan waa tuma halkaraan maxay qabataa maxay u taagan tahay bulshada maxay ku soo kordhisay faalooyin yar oo kooban noocaas oo kala wada jecelahay maanta inaan umada la wadaago halkaraan xogteeda kulay waxaan filayaa inaanay badi ku cusbeen umada reer Somaliland ama umada Soomaaliyeedba qof kasto af Soomaali ku hadlaba inuu halkaraan maanta magaceeda garanayo gudaha iyo dawladba muddo 10 sano ayuu naadiga halkaraan ka asaasan yahay gobolka Togdheer ee magaalada Burco 2009 bay ahayd markii naadiga halkaraan halkan laga asaasay baahi markaa la arkay dhalinyarada gobolku inay runtii markan u baahan yihiin inay helaan goob akhris oo noocan oo kala rug ay ka helaan kayd kutub oo runtii ay wax ku kala faa'iideystaan waxna ku akhristaan waxa la yiraahdaa akhriska iyo qoraalka marka laga hadlayo qofku ka akhris badan yahay ayuu ka ogaal badan yahay baa la yiraahdaa dad eegto ummadaha horumaray runtii wadamada Yurubiyaanka ah haddii u fiirsato waxay dhalinyartooda iyo wadamadooda ku horumareen waxa weeye iyagii wax baaray iyagii oo runtii wax akhriyay inana waxa la moodaa runtii maanta inaynu wadadii hayno oo wixii aynu soo fahmayno xarunta naadiga halkaraan oo labada gelinba u furan dhalinyarada gobolka iyo waayeelkaba iyo cid kasta oo xiisaynaysa inay wax ogaato waxna akhrido in rugta kaydka kutubta magaalada Burco halkaraan ay saacad walba u iman doonaan shaqaale carbisan oo labada gelinba u furan runtii ay ugu imanayaan iyo soo dhaweyn qurux badan fariinteedu u dambeysay halkan waxay tahay oo halkan uga diraya qurba joogta gobolka Togdheer ka soo jeeda golaha deegaanka iyo xukuumadda sare oo garwadeenka ka yahay mudane Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha qaranka mudane madaxweyne gobolka Togdheer wuxuu ka mid yahay goboladii laga doortay ee dhalinyaradiisu sida hagar la'aanta kuga hagar baxeen mudane madaxweyne qoraaladaadii iyo ballanqaadadaadii af iyo qoraalba lahaa ee marar fara badan ku celinaysay ee ahaa dhalinyarada gobolka Togdheer waxbaan la qabanaya dhalinyaradan dhiiri gelinaya shaqo abuur baan sameynaya tiiba dhalinyarada gobolku maanta kaaga fadhiyaan ilaahay xamdigii waxaan kaaga mahad celinaynaa in khudbad sanadaadkaagii u horeysay uu ku jiray inaad dhiiri gelinayso dhalinyarada iyo goobaha akhriska ee librariyada rugta naadiga halkaraan ee gobolka Togdheer maanta adiga ku sugaysaa waxaan rajaynaynaa waxa ay heleen gobolada kale ee Hargeysa ka mid tahay ee Berberi ka mid tahay ee runtii goobaha ama rugaha quruxda badan ee dabaqyada loo dhisay inay gobolka Burcana ay helaan Burcana xaq uma helin iyadoo ay ku nool yihiin runtii dhalinyaro 300 oo kun kor u dhaafay in runtii laba qol lagu soo koobo oo runtii magaalada ka baxsan mudane madaxweyne waxaan ku leenahay cadaalad badcaan ku ahayd gobolka Togdheerna uu ku sugaya isku soo wada xoriyo naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan ayaa kaalin muhiim ah ugu jira bulshada iyo sidoo kale dhalinyarada gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Soomaaliga Cable Burco.